بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed Saleebaan Xaaj Cali waxaan halkan ku qabanayaa maansadaas oo qiso jacayl oo dhaba oo dhacday ah marka ujeedada iyana waxaad kala soo dhaxbaxaysan maansada hadii alla idmo waan bilaabayaa dulmi ruuxna kama galo ma dilaala maansada halka aan dan moodaan diiradayda saaraa dubaaqayga caawana waxa uu dul yaalaa jacayl daacad waayo dulmi weynna laga galay afartaa intaan dayay ma dulgeeyay dadabtii dulmanuhu ku noolaa afar kalena aan dego andaleeya maansada dikreetana ka soo qoro caku dacar qadhaadh buu dibnihiisa saaro isla dhagax dixeed buu duuduub u liqayoo dirgan waayey socodkoo hadalkiina daayo dayma eegis mooyee dubaaq kaleba laga waa afartaa intaan dayay ma dulgeeyay dadabtii dulmanuhu ku noolaa afar kalena aan dego andaleeya maansada dikreetana ka soo qoro sidii uu dad hore yidhi doqonow jacaylow dulli badan in diracow darajeeye liidkow geesiga dilaanshow bal maxaa rag kugu diray dumar miyaad ka baqataa ma daawaad la leedahay mise duunyo iyo maal dahab iyo xariir iyo dollar bay ku siiyaan oo dangaaraad ku wadataa afartaa intaan dayey ma dulgeeyey dadabtii dulmanuhu ku noolaa afar kalena aan dego andaleeya maansada dikreetana ka soo qoro duluucdiiyo ujeeddadu halkay daarran tahay iyo andilaac shamaashe deeqayna suldaanay dumartuu ka doortay marka uu dareenkii cishqigii darraadee qalbigiisii degay baad ka dulboodday adiguye dabaxdaya jacaylkii dumisaya wanaaggii nabsi waa madaalay armuu kugu dambeeya isna diinta eebbiya wacdi lagula daala afartaa intaan dayey ma dulgeeyey dadabtii dulmanuhu ku noolaa afar kalena aan dego andaleeya maansada dikreetana ka soo qoro waxba deelka maansadu yaanu ila dilaamine dalmar wuxuu ku leeyahay waxba deelka maansadu yaanu ila dilaamine dalmar wuxuu ku leeyahay codkaagay daweyn lahaa haddaad diidday inay yahay inaan dadab wadaagnood iga durugtay caawaba dadka ugu wacno oo ku dekay adduunyada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mayniyo qisadan aniga iguma dhicin nimaanu saaxiibnahay bay ku dhacday marka Soomaaliya ku nool waana dhawaan bay qisadani dhacday ujeedadana gabayga maansada laga dhaxfahmaya insha Allah tooro marka deeqayna suldaan iyo ninka dalmar hadda xaaladooda maxaad rajaynaysaa wallahi waxaan rajaynayaa inay horta ay gabadhaasi maansadan ay gaadho ay ka falceliso oo ay inankaas garanaysaa jacaylkaas wax kala qabato insha Allah